gudoomiyaha warshada daqiiqda ee alwadaniya Axmed Faarax Xarbi oo qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa jawaab ka bixiyay cabasho ka soo yeedhay qaar ka mid ah geelaha ka howlgala dekedda magaalada Berbera. Annagu sideedaba dad buuqiya saxaafadda iyo maxay tahay yootanka jecel shariikadahan manihin waxaanu jecelahay intii allaale intii aanu ka warwareegi karayno ka warwareegno laakiin galabta waxay qasab noqotay inaanu hadalkan ka jawaabno eedaynaha ay xamaalka dekedda soo jeediyeen anigu waxba ka odhan maayo waxaan ka hadlayaa waxaan anigu ka hadlayo cadaymo iyo dokumenti iyo fiidiyo cadaynaya ayaan ku soo bandhigaya waxaan halkan idinku tusayaa qoraal ka soo baxay DB World oo cadaynaya inaan hawsha halkaa ka socota wax shaqo ah oo looga baahan yahay geelle aanay jirin marka laga reebo wixii daata ee dhulka ku daata ee la ururiyo kadibna jawaani lagu guro gaadiidka la saaro laana waxa weeyaan nidaamka aanu anagu wax ku dajinayna waxa weeyaan qasabada fiidiyoga ka muuqata ee gaadiidka raraysa ayaa hawshayada anaga noo qabanaysa sidoo kale waxa isaguna qoraalka ka bixiyay mid la mid ah maareeyaha dekedda marka horta anagu wax aanu maroorsanay ama aanu meel kale ka keenay maahe waxa weeyaan wixii jiray oo ay soo cadeeyeen hay'adihii ku shaqo kala hawey hadalku markii uu dabadeed dami waayay madaxweynuhu ugu dambeyn wuxuu u saaray guddi soo xalisha hawshan oo ay ka mid yihiin wasiirka ganacsiga kamaaliyadda maareeyaha dekedda gudoomiyaha chamberka iyo guddida maxay ahayd DB World ee maamulka ku jirta matasha dawladda Soomaaliland way isugu kaayeen labadayda dhinac bay iska soo hor fadhiiseen wayna wareysteen su'aalayna weydiiyeen cadeymaha yagii baan hor dhignay kadibna waxa cadaatay oo ay qoraal ku soo saareen in geelle oo ah xamaalka dekedda ka shaqeeya in uu xaq u leeyahay wixii uu tunkiisa ku raro ee uu muruqiisa ku goosto inuu xaq u leeyahay laakiin wax aanu isagu gaadiidka saarin oo gaadiidka qasabadaas ku shubtay inaanu xaq u lahayn ay qoraal ku bixiyeen qoraalkaana waxay u kala direen hay'adihii ku shaqo lahaa annagu hadday muddo dheer sheegayaan maxay ahayd geelle in ay meesha ka shaqeynayeen annaguna muddo baanu jed ayaanu dekedda Berbera la macaamilayna weligayna kumaana wada hadalna kama iman xamaal iyo annagoo is haystana lama arag laakiin maanta arinta meesha taala waxa weeye nin waxaanu xoogsan doonaya taasuna wax ilaahay ogol yahayna maaha wax dastuur ku qoranna maaha wax sharciyana maaha waxaanu aqbalaynana maaha annagu waxba dhimanaya iyo waxba la dilaya iyo waxa meeshaan ilaahay nagu uumayo wixii iyagu waxa ka sheekeynaya annagu warkooda raaci mayno laakiin waxaanu leenahay war wax ay xaqna loogu leeyahay ee naloo qabtay annagu diyaar baanu nahay waana ogolahay inaan bixino laakiin waxaan naloo qaban oo macna cashuureeda cid aanu ka aqbalayna oo nu geela ka aqbalayna cashuurta dawladda ma qaadate dad ma qaado dekedaanu joognaa wixii yimaadaba lacag baan ku leenahay amaan qaadna ama aanan qaadina meel ay ka shaqeysaa adduunyada ma jirto imikana arintayadii xukuumadda gacanta ku haysa xukuumaddaanu ku kalsoonahay wixii ay ka soo saarto buuq iyo qaylo aanu diyaar u nahayna ma jirto cid aanu ku tacadiyaynaana ma jirto cid aanu waxoodii xuquuqdooda doonaynaana ma jirto sidaa darteed waxa qof wal oo Soomaaliland ku dhaqan aanu sheegaynaa war annagu ma nihin dad nin xamaala oo dhididay dulmi ku dushiisa wax ka doona ma nihin diyaarna uma nihin daawada fiidiyogii laga soo qabtay waa kaas ummad yahay waxa idin muuqan doonta waxa xaqiiqada jirta ku bineeya go'aanka ka gaaraysa ama sida ay u fahmaysan guddidii madaxweynuhu u xil saaray hawshan go'aan bay ka soo saartay go'aankiina hay'adihii ku shaqo lahaa bay u dirtay oo ah DB World iyo maareeyaha dekedda inay fuliyaan taasaanu annagu ka warsugaynaa
oo markabkii naloo dejin lahaana waa joogaa hawshiina waxay taagan tahay in maxay ahayd markabkiina la soo xidho waxaanu la sugaynaa in wixii maxay ahayd hawlaheed naloo qabanayay inay ku dhaqaaqaan ciddii ku shuqul lahayd waxaan arkayay oo kale qoraal uu soo saaray maayirka magaalada Berbera mas'uul baa tahay hubsiina ku ekayd xukuumaddaada in la tashada ayaa haboonayd halka ay wax marayaan iyo halka ay soo mareen iyo waxa ay waxanu yihiin iyo xogogaalnimo inaad u noqoto kadibna wixii aad ka oranayso aad tiraha ayaa aniga ila muuqatay inay sida sax ah ay ahayd may ahayn inaad si yaro caadifadi ku jirto inaad qoraal isaga soo saarto oo aad amar ku bixiso iyadoo aanad ogeyn xaqiiqooyinka iyo wixii tadawurkii ay arrintan soo qaadatay iyo halka ay maanta taalo miiska madaxweynaha hortiisa ay taalo inaad ku degdegto wallahi waa laga wanaabana waxaan aaminsanahay fawdadan iyo buuqan iyo qayladan la soo tubay geelle inay cid kale oo saddexaad oo wax ugu jira aanan garanaynin waayo maxay ahayd ay ka durugsan tahay oo maxay ahayd aanay ku ekayn waayo hadday iyaga ku eg tahay runtii u sheegi lahaayeen waxay oran lahaayeen war dadka baadilka kala fadhiista waxa ku leedihiin waxay idinaan qaadin waxba kuma leedin ayay ku oran lahaayeen laakiin dad lu goynaya oo buuq iyo qaylo iyo fawdad doonaya inay wadanka galiyaan ayaan anigu aaminsanaynay dadkan waxaan ugu baaqayaa wax allaale cid ay dhinac allaale dhinac ay wax u taraysaa waxaasi ma jirto alxamdulillah ba geel la taagan yahay dekedu taagan tahay annagu taagannahay war wanaag iyo nabad iyo walaalnimo ayaa waxaas lagu wadi karaa laakiin buuq iyo qaylo iyo fawdad iyo waxbaan sameynaya waxaan sameynaya heedhe waxaas wax shaqeynaya ma